السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود شرفت له مeel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada Doobiyo Media Doobiyo qodobada dalkeen hooyo aadiin waxa kamid ah ida ka shaqeysa gobolka Shabeellada Dhexe gobolka Hiiraan ilaa Mudug waxaan cabashakana ilaa Galgaduud waxaan cabashakana isbaaro sanay kugu celiyahay galgalato waxaan kaloo cabashakana galgalato lacag taala oo midda dawladdu qaato ka badan oo aad iyo aad u badan oo xad dhaaf oo isbaaro waxay nooga soo bilaabanaysaa meesha la yiraahdo suuq bacaad oo aan ka soo rarno iyo bakaaro ayay nooga soo bilaabataa waxayna noogu dhamaataa meeshaan u socono ilaa meeshay rabta ha noqoto deegaanka aad degantihiin isbaara ka jirta Hirshabeelle isbaara ka jirta meelo badan oo dalka kamid ah isbaara kama jirto waa laga gudbay waa laga yimid maxaana looga gudbay dadka looga gudbay dawlad loogama gudbin darawallada kaxeeya gaadiidka oo ambabaxo gobolada isla markaasina Muqdisho ka baxay Shabeellaha Dhexe Hiiraan iyo Galgaduud iyo Mudug u baxo oo isbaarooyin fara badan dhulka Shabeellaha Dhexe ka cabanayeen iidoona horay uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aadan yabaal kaga sheegay in isbaara ay ku dambayso Hirshabeelle isla markaasina cidii lagu arko la dili doono warbixinaanu ka diyaarinay ayaan idin wadnaa sidoo kalena jubbada hoose ee maamulka Jubbaland ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa xooga dalka daraawiishta Jubbaland iyo saaxiibada caalamigana duqeymo iyo dagaal ay ka sameeyeen ayay wuxuu ku dileen 40 xubnood oo qawaarijta al-shabaab kamid ah sidoo kalena waxaan idin wadnaa xaaladaha ka soo cusboonaaday dawladda Jubbaland iyo guud ahaanba Soomaaliya in laga wada hadlo arrimo badan lagu gorfeeyo ayaa loo qabtay shirkan Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland kulan degdeg oo golaha wasiirada oo maanta Kismaayo kula yeeshay ciidona arrimo dhowr ah ee xaaladda howlgallada ugu dambeeyay looga hadlay arinta gado iyo sidoo kalena Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe arrimaha maamulkaasi oo golaha wasiirada kala shiray warbixintaasina oo qayb ay ka tahay mashaariic dhowr ah oo wasiirada soo gudbiyeen oo saxiixay ayaan idin wadnaa u diyaar garooba taasi oo dhameystiran anigoo Mustafa Maxamed Ali halkan kaga soo jeediyo isla markaasina aad ku daawataan balse booqashada koobaad ay taana soo booqatay YouTube-ka subscribe noo saarin fadlan calaamad gudubta subscribe-ka taaban beelka furo Facebook-ga Doobiyo flowna soo dheh video-gana muuqaalka like noo saar sidoo kalena sii share gareey si asxaab badan u sii gaarto waana ku mahadsantahay waa tahay haddii aan gudagalno isla markaasina sida hordhaca ku daawateen gobolka Shabeellaha Dhexe wadada dhex marto gaadiidleyda ka howlgasha ayaa cabasho xooggan ka imaaday isbaaro la xiriir waa wadayaasha gaadiidka ee ka howlgala inta u dhaxayso Muqdisho ilaa iyo gobolada Galgaduud iyo Mudug iyo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee safarada ee xamuulka qaado kuwaasi oo maanta duleedka magaalada Muqdisho gaadiid fara badan kaga xanibnaa halkaasi warbaahinta kula hadlay waxayna ay sheegeen in ay cabasho ay ka yihiin isbaarooyin fara badan oo yaallo gudaha Muqdisho mareyshay ka ambabaxayaan ilaa ay halkay ka gaarayaan kuwaasi oo maamulada gobolka Banaadir Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale maamulada kale ee halka ay u socdaan ee u taalo waxaana inta badan maamulada kuwa kale oo ka baxsan ee jiraan isla markaasina aysan garanayn halka ay ka tirsan yihiin lacaga baada waxa dhaaf ah laga qaado waxayna maanta warbaahinta cod dheer kaga hadleen gaadiidleyda ka shaqeysa gobolka Shabeellada Dhexe gobolka Hiiraan ilaa Mudug waxaan cabashakana ilaa Galgaduud waxaan cabashakana isbaarooyinkaas waxay kala yaaliin meelo kooban waxaana ugu horeysa hadda halka aan taaganahay gobolka Banaadir waxaan cabashakana isbaarata la gobolka Banaadir gaar ahaan Galgalato iyo suuqa Eriga iyo mid suuq bacaad taala oo lagu baabuurteeda lagu istaajiyaan ku dhahay Galgalata naftirkeeda ku soo kordhaysa cabashadaasaan nahay baabuurayaan nahay Soomaalidu waxay dhahdeen muxabuneed kuleelka isku keentay cabashadaasaan ka nahay waxaan cabasho u nahay dadka maamula gobolka Banaadir oo madaala u horeeyo oo madaxweynuhu u sareeyo
oo guddoomiyaha baarlamaanku ku jiro oo golaha wasiirradu ku jiro gobolka banaadir taasaan cabasho uga nahay waxaan rabnaa isbaarada taalla galgalato oon ka socon la'nahay oo 30 baabuur iyo ka badan ay taagan yihiin in nagala qaado wixii ay dawladdu ogoshahay oo canshuura waa ogolnahay laakiin waxa aan boono lahayn oo jabadka taagaan rabnaa in nagala dhaafo muqdisho dhexdeeda xataa isbaaraa taalla suuqbacaad dhexdeeda isbaaraa noogala qaadaa dabaqa tayo ay taallaa waxaa lacagteeda lagu qaadaa tayo haddaad soo qaada weyso boonadaas waxaa lagugu celihaa galgalato waxaana ku celihaya ciidanka sanay kugu celihaya galgalato waxaan kaloon cabasho ka nahay galgalato lacag taalla oo midda dawladdu qaadato ka badan oo aad iyo aad u badan oo xaddhaafa oo ummaddii mari weysay waxaan kaloon cabasho ka nahay hirshabeelle lacag waxaa noogala qaadaa $230 ilaa $240 u dhexaysa waxaa noogala qaataa ceelcadde haddaad afka hore kala baxdo isbaaraa taalla lacagaa lagaaga rabaa ayakuna shaqa kuma lahan baabuurka waa la xabadayha dadka waa la dilaa qof loo sheegaayana male lacagtiisoo duubaha mau kaaga hera ilaa sii soco ilaa kuma daraaday xaaji cali tag oo xaaji cali mid kalaa taalla oon la xisaabayn oo iyaduna dadka lacagta looga qaato geelgubay taallaa dhinaca kale u wareeg waxay taallaa haddana cadalay taallaa waxay taallaa haddana u wareeg mahadaay tuulooyinka hoostagood ay taallaa meelayna aalin male dadkii gobol waa la dhaawac darawaleyntii gobol ay koo dhaawacay isbitaallada yaalliin qof loo sheegaayana male waxaan u cabahaynaa marka ugu horraysa duqa magaalada midda galgalata taalla duqa magaaladii hoos tagtaa duqa magaaladaa xukuma waxaan rabnaa duqa magaaladu baabuurtaan gadaashayna taalla meelay marta waa weyse sharaftale waxaan ka codsanaynaa dhibaatana nagu hayso waddadan aan ka shaqaynayna haddaan nahay gaadiidley waa marka koowaad marka labaad isbaaro waxay nooga soo bilaabanaysaa meesha la yidhaahdo suuqbacaad oo aan ka soo rarno iyo bakaaro ayay nooga soo bilaabataa waxayna noogu dhammaataa meeshaan u soconno ilaa meeshay rabta ha noqoto waxaa noogu soo xiga meesha la yidhaahdo suuqbacaad waxaa noogu soo xiga $10 nooga soo bilaabatay iyo 100 isbaare ah ee nimanka meesha jooga ay naga qaataan qoryaha leh iyo $10 oo meelay u jeedda iyo meel ay ka jeedta aanan aqoon dhibaatada ugu weyn waxaana haysa dhibaato dadkan aad arkaysaan oo meeshan karuuran waa dadkii masaakiin tahay oo loo adeegayo ambase cabashaa ambase gaadiidka waday darawaleynta waaba ka quusata sideeda bannaanba inay baabuurta wadaan mid filla tuursan mid qulaysan mid garaacan mid xabaru ku taallo mid meel walba yaalla isbitaal kasta yaalla maanta dawladda waxaan ka codsanaynaa inta uu ugu sarreeyo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka dhammaan iyo intii lamida intaas waxaan ku daraynaa marka aan soo gaarno meesha la yidhaahdo iyo sheeg cali geedi meesha la yidhaahdo fagax galgalato uguba daran galgalato 5 isbaaraa taalla dhexdeeda 5 isbaaraa taalla mid gobolka banaadir ay u taallaa waxay qusaysaa guddoomiyaha gobolka banaadir ay qusaysaa inta midaasaa sharci ka ah inta kale wax shaksi u yaallo oo nin jeebkiisa galaayo waayo dalna wax looguma qabto dadna wax looguma qabto masaakiinin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo degmada aadan yabaale ee gobolkaasi shabeellaha dhexe maamulka hirshabeelle oo tagay ayaa waxa uu kaga shanqariyey in isbaaro dalka kaga dambeyso gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan hirshabeelle sidaas darteedna loo baahan yahay in laga gudbo dowladnimo deegaanada kale isbaarada laga qaaday kagama gudbin balse dadkeeda ayay ku xiran tahay ayuu yidhi deegaanka aad degantihiin isbaara ka jirtaa hirshabeelle isbaara ka jirtaa meelo badan oo dalka kamid ah isbaara kama jirto waa laga gudbay waa laga yimid maxaana looga gudbay dadka looga gudbay dawlad loogama gudbin dawlad kama kicin deegaanka inta hadii 10 kilomitir loo kacana isbaar haday taalo inta hadaa uga baxdan 5 kilomitir ay taalo xamar hadaad aadood sii socotana dhul islaameed aadan marayna kuwa un aad sheeganaysa haybta meeshay doonaa kula ekaadaan aad sii dhex marayso oo 12 isbaarana aad sii marayso gabdhaha dharka looga furana oo odayaasha maxaan ku raadaay looga qaadanayo maxaa kista yartaa wartuug dawlad mala darajo male qaadicu tariiq dawlad mala iska dhiciya dadka yac iska dhaha
qaadico dariiq iyo isbaarista dawladdu waa la dagaalsan tahay waana la dagaalay laakiin dadka la'aantiis lama dagaalami karo khawaarijtan maanta dalka laga kiciyo dadka deegaanada degan gobol kasta haddaanay u istaagin lagama kici lahayn meelay ku harsan yihiinna waa meelaha weli dadka u kici waayey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta iyo saaxiibada caalamiga oo iskaashanayo ayaa howlgal qorsheysan waxay ka sameeyeen jubbada hoose deegaano dhowr oo ka tirsan waqooyi bari degmada Afmadow deegaan hoostaga oo lagu magacaabo Walmarow ayaa halkaasi duqeyn iyo dagaal ka dhacay kooxda khawaarijta al-shabaab lagu dilay ilaa iyo 40 oo dagaalyahanadooda iyo horjoogayaal iskaga tirsan waxaana sidoo kale gaadiid laga gubay saaxiibada caalamiga iyo sidoo kalena ciidamada daraawiishta iyo kuwa kale ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay howlgallo dhowr ah ka sameeyeen deegaano kale kuwaasi oo howlgallada loogu ciribtirayo jubbooyinka iyo maamulka Jubbaland deegaanada kooxdaasi qaswadayaasha kaga dhoomanayeen maalmihii ugu dambeeyeen howlgalladii la sameynayay ayaa jabti xanaha halkaasi ay kala kulmayeen arxan laawayaashii gobolkooda sii dhacay ee shabaabka ahaa dhanka kalena Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa kulan degdeg ah golaha wasiirada maamulkaasi la yeeshay maanta isla markaasina lagala hadlay xaaladda ee maamulka Jubbaland gaar ahaan howlgalladii ugu dambeeyay iyo sidoo kalena arrinta ee la xiriirto horumarinta maamuladaasi iyo sidoo kalena asigoo saxiixay ilaa iyo 4 mashaariic xaaladda kadana ay mashaariicii ka xirneedna loo fasaxay waxaana arrintaasi warbaahinta la hadlay mas'uul ka tirsan maamulka Jubbaland oo faahfaahinayo xaaladaha ka soo cusboonaaday dawladda Jubbaland iyo guud ahaanba Soomaaliya in laga wada hadlo arrimo badan oo lagu gorfeeyo ayaa loo qabtay shirkan qodobka koowaad ee mudnaanta koowaad lahaa wuxuu ahaa waa gobolka Gedo waad ogtihiin xaalado wuxuu soo maray go'doon muddo dheer hadda waxa la magacaabay maamulkii gobolka Gedo waxa laga wada hadlay maanta oo shirka lagu gorfeeyay arrimo fara badan oo ku saabsan dhinaca horumarinta kaabayaasha humanitarianka ama bani'aadanimada iyo sidii loo gaarsiin lahaa wax walba oo la karo in la gaarsiiyo gobolka Gedo qodobka koowaad ee ugu muhiimsan wuxuu ahaa dardargelinta habsami u socodka howlaha shaqo ee gobolka Gedo golahu wuxuu go'aamiyay in dhammaan hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba ay la shaqeeyaan maamulka gobolka Gedo hadda functionalka ah ee shaqeynaya si bilaa shuruuda amniga ayuu ahaa qodobka labaad amniga waxa laga hadlay howlaha xoreynta qabashada ama xasilinta goobaha ama deegaanada ay haystaan argagixisadu hagaag gudahaan intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa tan iyo markale inta kulmi doono anagoo isku duuban laga tagay sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.